casharkan waxaan ku qaadan doonaa laba feature uu leeyahay spanning tree-gi. Waxaa loo yaqaana mid waa portfast, midna waxa weeyaan bridge protocol data unit guard oo PPDU guard baa loo soo gaabiyey. Labada feature bal portfast kan ku bilaawno. Halkan waxaan arkaynaa inuu computer yahay, halkan inuu server noo yaalo. Spanning tree mar walba isagoo caadadiisa waxa weeyaan switchka marka xadhig lagu soo xidhayo inuu check gareeyo bal inuu switch yahay iyo in kale. Imka halkan waxaan ku arkaynaa waa computer. Haddii aan ku soo xidhno interface-ka fast ethernet 30 second waxay qaadanaysaa listening key iyo learning key oo wuxuu check gareynaya bal inuu yahay meeshan switch inaan ku soo xidhno in kale. Waanan ognahay inuu computer yahay. Marka xadhig waxaan doonaynaa markiiba inuu noqdo green oo immediately transition ku isbedelo oo noqdo up u shaqeeyo. Marka portfast maxaa ka dhigaysaa inuu ka baxo checking kaas oo dhacdo halkan waxa ku soo xidhmaya waa end device oo computer ama server. Marka ma baahnid inaad check gareysid spanning tree oo message-kii hello iyo wixii aad u dirtid. PPDU guard isna waa maxay? Waa security feature oo halkan haddii aan enable garano PPDU guard wuxuu joojinayaa farimihii la soo dirayay ee ahayd inuu check gareeyo switch. Okay, taas maxay ka dhigan tahay? Haddii inkaan joojino PPDU guard ban enable garan interface-kaas ka soo qaad, computer-kana ka saaray switch ban keenay. Switch-ka haddaan keeno ku soo xidhay interface-ka waa la deminaya. Waayo PPDU guard waxay ka dhigan tahay in meesha loo enable gareeyo inaanu ku soo xidhmin wax switch computer mooyaane cid kale ma ogolaanayo. Haddii cid kale lagu soo xidho sida switch oo kale lagu soo xidho interface-ka waa deminaya. Okay, labadaas feature waa laba feature oo very handy ah, aad u fiican kana caawinaya in computer markiiba ay taarmaan. Configuration-kiisa waa quite simple. Aan u tagno switch-ka koobaad, switch number 1 aan soo enable garano. Laba qaab baad u enable garan aan uga shaqaysiin kartaa. Mid waa global configuration, midna waa interface configuration. Marka taa interface-kan isticmaalo waxaan leeyahay configure terminal interface fast ethernet 0/1 buu kaga xidhan yahay spanning tree. Halkan maxaad ku arkaysaan PPDU guard iyo portfast. Portfast aan ku horeysiiyo portfast. Warning yar buu ku soo diray wuxuu leeyahay portfast waa in aad iska ilaalisaa inaad ku enable garaysid meel switch iyo bridge waxaanaad ku soo xidhay sida computer waan u ahaada. We know waa computer. Waxaan ku tijaabin karnaa xadhigan ka jaraya dib baan ugu xidhaya speed ku qaato markiiba inuu green noqdo aan eegno. Markiiba green buu noqday. PPDU guardsna isaguna halka aan joogno interface-ka leenahay spanning tree PPDU guard arada enable. Okay, taa waan enable garanay. Haddii aan xadhiga ka saarno computer-kan switch soo qaato aan ku xidho halkan marka waa inuu maxay sameeyaa? Waa inuu disable gareeya. Waayo guard PPDU guard wuxuu ilaalinaya interface-ka. Marka cross aan isticmaalno fast ethernet 0/1 then let's wait. Aka interface-kii uu damiyay. Halkan maxay noo soo baxay? Waxay noo soo baxay wax loo yaqaano error disabled. Interface-kii waa up u noqday ka bacdi waa la block gareeyay. Spanning tree wuxuu block gareeyay block buu sameeyay PPDU guard baa la enable gareeyay laga shaqaysiiyay oo kana soo diray fariin isagoo aan laga sugayn inuu fariin soo diro. Waayo waxaan waa computer imkana switch ban keenay. So interface-ka waa la disable gareeyay. Interface-ka maxaa laga dhigay xaaladiisa error disabled. ku check garan kartaa show interfaces status. Show interface status waxaad u timaado halkan waa ka fast ethernet 0/1 error disabled adansan waxna ma dirayo waxna lama soo dirayo. xalku muxuu yahay? deena disable garaysid halkan ama xadhiga ka saartid kiisii hore ku celi interface-ka dami oo dib u daar. Interface fast ethernet 0/1 shutdown PPDU guard iyo portfast waxa weeyaan feature-daas weeye. midna waa security feature, midna waa feature markiiba computer-ka degdeg u daaraya. Configuration-ka halkan oo ku sameynayna waa la mid. So taasna waxba uma baahnin. Inta halka ku sameysan bad halkan kalena ku sameyn kartaa.